shirkadda ka ah oo inta badan bixisa adeega korontada ee magaalada Hargeysa ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuleysatay inay wax ka qabato xargaha dhibaatada badan ku hayay dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee korontada kuwaasi oo ay shirkadaasi ku guuleysatay in ay mariso dhulka hoostiisa. waa kan Axmed Maxamed Jaamac wariyaha Somali Channel ee jooga magaalada Hargeysa oo warkan halka ka soo diray. shirkadda adeega korontada ee ka oo kamid ah shirkadaha adeega korontada ee caasimadda Hargeysa ayaa ku guuleystay inay xargaha korontada dhulka hoostiisa mariyaan. mas'uuliyiinta shirkadda adeega korontada ee ka oo maanta kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maayirka caasimadda Hargeysa oo kamid ah guddiga bilicda caasimadda Hargeysa ayay ka wada hadleen sidii shirkadda adeega korontada ee ka ay ugu guuleysatay inay xargaha korontada qaada dhulka hoostiisa mariyaan. waa shirkad ka ma aha wax qof leeyahay board bay leedahay nidaam bay leedahay maamul bay leedahay waa la isu yimi waxa qaraar xukuumadda soo saartay maxaynu yeelnaa daayno aqbal loo qaadan markii baa dhaqaalaheedii iyo qorsheedii barnaamijkeeda la diyaariyay sida gudoomiye sheegana waxaan bilaabnaa 10 kilomitir ugu horeeyay saa ku dhaqsaa badan xageeyga wax kama qabiyaha haday xarig aan lahayn iyo haday qalabkii ku shaqeyn lahayn kala aan lahayn dhammaantood waa naga diyaar fulino amarkii ka soo baxay xukuumadda iyadoo runtii amarkaas uu yahay amar dalka iyo dadka manfaacaya tii la eego safety ahaan uu anfacaya oo hadda waxa dhacda marmar uu baabuur ku dhaco hayga oo xaafado dhanjasanaadaan dad badan ku dhintaan adduunkana waa laga baxay leerkii hayga ahaa ee dhulka korka la marin jiray inta badan marka maadaama aynu tadawur u soconno jeebkeenu haba yaraadee dee inaynaan ka harin baa fiican marka shirkad ahaan waxaa naga go-an waxaanu hadda soo horumarinay 10 kilomitir ugu horeysay hayga haynan keeno annagoo ka ajiibnay muxuu ahaa codsiga ay soo codsadeen oo hore amarkii u baxay waha waxaanu geli doonaa wixii farsamo ah oo ah inay ururkii ay lahaayeen qolada leerka ka wada shaqeysa waayo waxa weeye shirkado kale downtown-ka kala shaqeeya meelaha qaar xaafadaha waxa weeye waa shirkad qura ka shaqeysa inta downtown-ka ayay la isugu yimaadaa dhowr shirkadood marka ururkii shirkadaha leerka ka shaqeeya iyo shirkadda ka injineeradeedii iyo injineeradii dowladda hoose inay sameeyaan wixii farsamo ah iyo sidii loo dhigayo inta suuqa dhexe. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde ayaa isla goobta ka hadlay wuxuuna ku amaanay maamulka shirkadda adeega korontada ee ka iyo hawlaha ballaaran ay ku tallaabsadeen. shirkadda ka muxuu ahaayay siisa magaalooyinka Somaliland badankooda leerka